habeen wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka BBC Somali qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxa kamid ah macluul iyo gaajo malaayiin ayaa wajahaya dhibaato bani aadamnimo iyadoo uu socdo dagaalka wadanka Yemen waalidiintii ubadkoodu la afduubtay ayaa ka walacsan badqabka gabdhahooda hal toddobaad kadib markii 110 arday ay Boko Haram ka afduubteen Dibaaji oo ah Nigeria waxaynu idin haynaa gabar soo baxsatay gabdhaha Ghana ayaa si guul leh u dheelaya ciyaarta rabbiga hadda waxa ay doonayaan inay sameeyaan naadiyo badan iyo in ka badan 1000 ciyaartoy oo dheela 2020 qaramada midoobay ayaa sheegtay dagaalka Yemen oo ah dalka dunida Carabta ugu saboolsan inuu noqday masiibo bani aadam sameeyo tii ugu xumayd adduunka in ka badan 9,000 oo qof ayaa dhimatay 50,000 waa ay dhaawacmeen ilaa iyo bishii Maarch ee sanadkii 2015 in ka badan 22 milyan oo ah 75% dadka Yemen ayaa u baahan kaalmo in ka badan 8 milyan waxay qatar ugu jiraan macluul nafaqa darro ba'ana waxay qatar ku tahay nolosha 400 oo kun oo carruur ah oo 5 sano ka yar Aisha Afrax ayaa ka waramaysa xagga sare ee gacanka Carabta waxa ku yaala xeebta Yemen Sacuudi Carabiya iyo xulafadooda ayaa hawada Yemen maamula waxa kaloo ay xukumaan badda Yemen oo ay ku yaalaan jidadka waaweyn oo ay maraakiibtu maraan kuwaas oo muhiim u ah caalamka Sacuudiga ayaa sheegay in badda la soo mariyo alaabo sharci darro ah sida hub ay Iiraan u soo dirtay Xuuthiyiinta markabka dagaalka Makka ayaa waxa uu baarayaa maraakiibta ku socota dekedda Xudayda hawsha uu hayo Kabtan Masfir Al-Shamrani waa hawl muhiim u ah dagaalka waxana uu noo sheegay in xitaa maraakiibta gargaarka ay ka shakiyaan haddaynu ku soo noqono dhulka dagaalku aayar buu u socdaa ciidanka Yemen iyo kuwa qabaa'ilka ayaa 16 kiiloomitir u jira duleedka caasimadda Sanca iyagoo rabaan inay ka qabsadaan Xuuthiyiinta General Nasir waxa uu og yahay inuu ka horeeyo dagaal adag waxana uu sheegay in ciidankiisu ay khibrad u leeyihiin sidii loogu dagaalamo buuraha iyo deegaanada adag tani waxay ku tusaysaa saameynta ay duqeyntu ku yeelatay Sanca xaafadan oo u dhow wasaaradda gaashaandhigga isbahaysigan uu Sacuudigu hogaaminayo waxay wax ku duqeynayaan hubka ugu casrisan oo ay ka soo iibsadeen saaxiibadood sida Britain Mareykanka iyo Faransiiska Sacuudigu wuxuu ku celceliyay inaanay rayidka bartilmaameedsanaynin balse dadku waa ay ku dhibaatoonayaan reerkan sidii reero kale oo badan waxa ay ku waayeen gurigooda duqeynta Sabiita Saalax waxa ay tiri waxay u baahan yihiin in la caawiyo shalay saddexdeedii cunug waxba ma aysan cunin ayadana way iska xanuunsan tahay dagaalkan meel looga amaan helayo ma laha wuxuu ku qasbay reerahan inay barakacaan halkan ayay hadda isleeyihiin hoy ku meel gaar ah ka sii samaysta waddanka ugu saboolsan Carabta ayaa hadda noqday goob ay ku hardamaan quwadaha gobolka bariga dhexe Sacuudigu iyo Iiraan waa ay og yihiin inay dab ku cayaarayaan toddobaad ayaa ka soo wareegatay markii la afduubtay gabdhaha iskuulka Dibaaji ilaa iyo haddana 110 kaasi gabdhood ayaan la ogeyn halka ay ku dambeeyeen gabdhaha waxa la afduubtay kadib markii dad lagu tuhmay inay ka tirsan yihiin Boko Haram ay iskuulkooda u soo dhaceen bariga Nigeria BBC-da ayaa la hadashay gabar ka baxsatay afduubka Cabdiraxmaan Bidaan ayaana inooga waramaya warbixintan toddobaad ayaa ka soo wareegay kadib markii Dhabji dugsi ku yaala laga qafaashay 110 hablood oo wali la leeyahay kadib dhowr cisho oo lagu dawaqay wararka aan sugnayn ee dawladdu faafisay ayaa imika xaaladdu soo kala cadaanaysa sida ay wuxu dhaceen goobjoogayaasha ayaa sheegay in rag hubaysan oo la aaminsan yahay inay Boko Haram yihiin inay iskuulkaasi soo jeedeen ku yaala waqooyi bari ee Nigeria iyagoo hablaha ku daabulay gawaadhi ardayad soo baxsatay ayaa BBC-da la hadashay I saw them with my own eyes indhahayga ayaan ku arkay markii hore waxaan isku daynay inaan ka baxno albaabka hore iskuulka laakiin waa ay naga xireen markii iskuulka ayaan gadaal ugu noqonay darbi ayaan ka boodnay laakiin 3 gaari ayaa taagneed niman qoryo wato ayaa istaagsanaa albaabka waxay cirku u ridayeen xabado
iskuulka ayaan haddana dib ugu noqonnay derbi kale ayaanna ka boodnay waxaa kaloo la shaaciyey in maalin ka hor intaan weerar kuba dhicin koontarool iskuulka u dhowaa laga kaxeeyey askartii joogtay inkastoo la ogaa in dugsigaasi hablaha ah ay dhigtaan in ka badan 1,000 arday madaxweynaha ayaa soo dhigay twitterkiisa in guddi loo saaray baadhaysa iyadoo afduubka halkaasi ka dhacay taasi laakiinse waxba u tari mayso dad badan oo carruurtooda la qafaashay isla markaana aan war iyo wacaal ka haynin dugsigan ku yaalla dabji ayaa 270 kilomitir u jira iskuulka shibok kaasi oo Boko Haram ay 276 gabdhood ka afduubeen 2014 qafaalashadaasi ayaa waxay noqotay mid caalamku aad uga qayliyey isla markaana lagu baaqay in hablaha la sii daayo 100 hablahaasi shibok ka mida ayaa weli aan jaan iyo ciribtoona lahaynin meel ay dhigeen iyada oo iminkana gabdho kaloo yaryar laga afduubay iskuulkoodii ayaa la isweydiinayaa bal waxa arrintani ay u soo noqnoqonayso faahfaahin dheeraada ku saabsan warbixintan iyo kuwo kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Soomaaliya adigoo mobilkaaga ka gelaya bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta warbixin qaramada midoobay oo qorsoodi loo sii daayay ayaa muujinaysa in Kuuriyada Waqooyi ay sahay u diraysay Suuriya oo loo adeegsan karo hubka kiimikada waxaa laga helay marmar aashitada iska celin kara iyo kulbeegyo warbixintan waxay sidoo kale sheegaysaa in farsamayaqaano Kuuriyada Waqooyi ay ka shaqaynayaan warshado ku yaala gudaha Suuriya Jared Kushner oo la taliye sare u ah madaxweyne Trump ayaa fasaxiisa aqalka cad hoos loo dhigay tani waxay ka dhigan tahay in wiilka uu sodoga u yahay uusan u dhawaan karin waxyaabaha xasaasiga oo ay ku jiraan warbixinada sirdoonka fasax kumeel gaar ah ayuuna ku shaqaynayay amiirka dhaxalka leh Sacuudiga Mohammed bin Salman ayaa sheegaya inuu qaadayo tallaabooyin degdeg ah oo adag si uu la dagaalamo musuqmaasuqa meel kasta ka jira wuxuu la barbar dhigay cudurka kansarka isaga oo sheegay in daawadiisa oo kale uu isticmaalayo si uu u joojiyo inuusan sii fidin tobaneeye maalqabeenno ah iyo xubno qoyska boqortooyada ka tirsan ayaa la baaray sanadkii hore kumanaan taageerayaal ah ayaa saftay waddooyinka Mumbai si ay u macsalaameeyaan Saridevi Kapoor oo ahayd jilaa aflaamta Hindiga 54 sano ayay jirtay markii ay ku dhacday musqul hotel Dubai ku yaal kadib markii ay miir doonsatay kuwa caanka ah ee filimada Bollywoodka aadka loo yaqaan ayaana ka mid ah dadkii yimid tacsida oo ka dhacday Andheri oo ah halka ay ku taal xarunta filimada Bollywood magaalada labaad ee ugu weyn waddanka Jarmalka Hamburg ayaa bilaabaysa in ay mamnuucdo baabuurta duugowday ee naaftada ku shaqaysa laga bilaabo bisha Abriil maxkamad federaalka ayaa xukuntay in magaalooyinka Jarmalka ay joojin karaan jidadkooda kana celin karaan baabuurta qaaca ugu badan hawada ku sii daysa ee naaftada ah si wax looga qabto dhibaatadan dawladda Jarmalka iyo shirkadaha awoodda badan ee baabuurta sameeya ayaa mar walba ka soo horjeestay mamnuucidda sida uu ku waramayo Farxaan Maxamed Jimcaale waa waqtigii la nadiifin lahaa jidadka dalka Jarmalka jidkan oo ku yaala Hamburg waxa xilliyada qaar laga mamnuucayaa baabuurtan cusbayn oo dhan waa talaabadii ugu horeysay Charlotte way ku faraxsan tahay waxaan ka walaacsannahay caafimaadkeenna wadna xanuun ayaan qabaa waxaana dareemayaa inuu ka sii darayo waxaa jiro maalmo qaaca hawadu ka badan yahay maalmaha kale waadna dareemi kartaa toddobaadkan horaantiisii ayaa maxkamadii ay samaysay go'aan taariikhi ah garsoorayaashu ma amri karaan magaalooyinka diida laakiin kooxaha deegaanka u ololeeya ayaa isku dayeeyey guud ahaan 70 magaalo ayaa dhaafay xadka u degsan midowga Yurub waxaa jiro tallaabooyin lagu horumarinayo gaadiidka dadweynaha lagu dhisayo jidad baaskiil laakiin waa mustaqbalka uun dhibaato xun ayaa naga haysata qaaca hawada halka ugu dhowna waa in la mamnuuco ama la yareeyo xawaaraha ay ku socdaan waa arrin aan u wanaagsanayn shirkadaha baabuurta ee Jarmalka qiimaha naaftada ayaa hoos u dhacay kadib fadeexadii baabuurta Angela Merkel oo ka soo horjeeda mamnuucista ayaa loo arkaa inay aad ugu dhow tahay waxay tiri magaalooyinka Jarmalka intooda badan heerkoodii qaaca hawada ma dhaafin laakiin waxayse intaasi raacisay inay la shaqayn doonto kuwa xadka ka gudba
waa dal baabuurku qiimo uu ku leeyahay go'aankanina waa mid la isku khilaafsan yahay dadka ku nool jidkan hamburg waxay ka walaacsan yihiin mamnuucista baabuurta diiselka ah inay dhibaatada meel kale u dirto waxaa jira kuwa doonaya inay nadiifiyaan hawada dalkan oo aaminsan inaan loo baahnayn go'aan maxkamad oo keliya balse ay tahay in la beddelo dhaqanka markana wararka ciyaaraha ugu waaweyn Swansea City ayaa soo gaartay 8 u dambaysa FA Cup-ka markii ugu horeysay ilaa iyo 1964 waxay 2-0 ku tumeen Sheffield Wednesday wareegoodii shanaad ee la isku celiyay maamule Carlos Cafala wuxuu sheegay badintan in ay siisay kalsooni ay kaga fogaadaan in ay ka haraan horyaalka Ingiriiska waxayna la ciyaari doonaan Tottenham ama Rochdale cidda caawa badisa ciyaarta Wembley madaxweyne Putin ayaa la kulmaya ciyaartoyda ciyaaraha fudud ee Ruushka kuwaasi ee ka soo laabtay tartanka Olombikada qaboobaha ciyaartoyda ayaa tartanka uga qayb galay si iskood ah waxayna ku guuleysteen 17 biladood oo ay ku jiraan 2 dahab ah 8 ay saadaalinayeen ayay ka badan tahay balse Alexander Korshelnitsky iyo Antasia ayay noqotay inay celiyaan biladihii ay heleen Rafael Nadal oo tenniska dunida ninka labaad ah ayaa ka haray ciyaarta tenniska ee ka dhacaysa Mexico sababtoo ah dhaawacii dhaliyay inuu ka baxo ciyaartii tenniska ee January ee Australia ninkan haysta 16 horyaal ayaa la kulmi lahaa Feliciano Lopez rogaalka hore ee Arbacada ka dhacaya Acapulco rugbyga si weyn loogama yaqaan Ghana lamana mid ahan kubadda cagta balse hadda qaramada midoobay ayaa bilowday olole ay ku fulinayaan iskuulada dalka hadda waxaa ka jira kooxo rugbyga ciyaara waxa ayna doonayaan tiradaasi in laga badiyo iyo in ciyaartoyda tiradooda ay gaarto ilaa iyo 1000 marka la gaaro 2020 gabdhaha ayaana ka mid ah kuwa hadda doonaya in ay rugbyga ciyaaraan Axmed Xaaji Xasan ayaa ka waramaya yaa arji waa 14 jir ciyaaraha rugbyga waxa ay bilowday sanadkii hore isbuucii hal mar ayay dheeshaa balse caqabado ayay wajahaysaa waan jeclahay rugby waa ciyaar xiiso leh heer caalami ah inaan ka gaaro ayaan doonayaa balse qoyskayga ma ii ogolo ciyaaraha rugbyga gabdhaha waxay u baahan yihiin dharka ciyaaraha iyo kabo iyo waxyaabo kale oo u fududeeyo inaan si fiican u ciyaarno 4 koox oo keli ah ayaa dumar ka ah 13 kooxood ee dalka u diiwaan gashan ee ka qayb gala tartamada heerka qaran iskuullada ayaa dhiirageliyo ciyaaraha rugbyga waana barnaamij caalami ah waxaa la doonayaa in la badiyo tirada ciyaaryahanada tababarayaasha iyo garsoorayaasha caalamiga ah Rafatu Anusa waxa ay ka tirsan tahay ururka horumarinta rugbyga ee Ghana ardayda iskuullada ayayna dhiiragelisaa sanadaha soo socda gudahooda waxaan doonaynaa in ciyaaraha rugbyga ee Ghana ka noqdaan caan hadda iskuullada ayaan aadnaa iyo dadkana waan dhex galnaa xitaa suuqyada ayaan eegnaa kubad ayaana ku dhex tuurnaa waxaa jiro caqabado badan sida tababarka qalabka dhaqaalaha marka laga hadlayo dhiirigelinta ciyaartoyda waxay da'da ciyaartoydan u dhaxaysaa 10 ilaa 15 sano garoonka aan fiicnayn kama niyad jebin inay ujeeddadooda gaaraan kharash badan ayuu u baahan yahay horumarinta ciyaaraha Ghana iyo in la taageero xirfadlayaasha yaryar sida yaa arji ugu dambeyntiina diyaaradaha aan duuliyaha saarnayn ee droniska la yiraahdo waxay qaadaan dawada alaabaha boostada balse hadda waxay ku darsadeen hawlo kale inay qayb ka noqdaan naqshadaha xaragada ee Dolce Gabbana oo soo bandhigtay boorsa gacmeedyo ka laalaada dhowr dronis oo dul heehaabaya masraxa magaalada Milan ee wadanka Talyaaniga wararkan iyo kuwii ugu dambeeyay waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan boggeena bbcsomali.com intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawa waadna ku mahadsantihiin daawashadiina inta aan kulmi doono habeen dambe waxaan idinkaga tegaynaa aniga asxaabtaba nabad gelyo